علي ما أنا نكون مخلين محايد هذا waxaa ku dhahay Australia waan xareystay وأنا كقولي زتي haa همبليو أباي ما شاء الله أنتي وحكومة راينا هذا سفارة ما قبل marka صنطة maya wiilka hadee wax dhan iga balansanay wiilka hadee yana isku mid ah ويل soo كده diray يلا warqada متى أوكي haa أو انترفيو بلنسن haa ما شاء الله همبليو همبليو أباي وحلو فرح واي ay dadka hoos joogo dhan gabadhan hambaliyo soo qora ma fahanteen marka aad u maadsanta walaahi wax walba waan la socdaa xataa abee woolka waan xaray asana waa saddexda isteeba aa gudbe asna wax waa ka faa'iido waay laakiin kana hadda maasha Allah ku guuleystay همبليو أباي وحاد لو فرح واي رجعنا قلني أنا جهتا waxaan sameynayno wax muhiim inuu yahay arkayna aqoon kuma lihi waligay kuma arkin il kuma saarin laakiin waxa guul ii ah farxadna ii ah gabar Soomaaliyeed oo rajo lahayd dadaalaysay dhaqaaqaysay hami lahayd maantana guuleysatay wax ka weyn kana muhiimsan ma jiro farxadaadana waa farxadeena abaayo waanu kugu bogaadinaynaa jaanis walbo soo baxo hadda yeelsanin niyadaada raac qalbigaaga fiiri wixii ku wanaagsan arag wixii ku xun ka leexo umada ha dhageysanin qof dibadda jooga ha aminin dadku waa wada xaasidiin anaa dibadda ka imaaday kowdhe garanaya dadka jooga ayagoo xagga joogay xaasidiin yihiin xagga ayagoon joogay waxba isku ogoleen qof Afrika jooga markuu soo baxana way xasdaan ha imaanin waxba ma yaalay dhahaan waana beentood ayaga ka soo tagaysaa baasaboorradooda gubi lahaa waa ay garataa malena abaayo marka wax walaahi in badan adaan ugu dhiirigelisay maasha Allah dad warkoodan animaba qaataba Soomaaliya marka ninka deena waa u jeedo wuxuu dhahay Australia jooga ani waa soo xareystay wixii dhan waa soo fiiriyay qof fircoon ah hataa wax ugu dambeys waa ku qoray maasha Allah hambaliyo marka qof warkiisa dhageysanay baba lahaanba step walba waa kula socdaa wax walba soo dhigto waa kula socdaa wax aanan baraaweynin ma lahaanba wiliga aan waxaan kugu ogahay waxii lagu sheego dadka warkooda ha dhageysanin taada raac gal akhri wixii hadaadan akhrin maya meesha Soomaaliya meesha ku dhex jirta Soomaaliya ku dhex jirta sababta loo geliyay maxaa waay Soomaaliya sababta loo soo geliyay maxaa waay Australia looma ogolo Soomaaliya beentiis waa ninkaas uu iska hadlaya xaasid miyaa mise waa si wax kala jira may dadka horumarkooda ka soo jeeda asaga inaa meesha loogu imaano abay hal mid ku sheega dadka dibadda joogaan oo dhan waxay ku leeyihiin inta waxba ma yaalaan waxba ma ahan waraaqada noo soo dhacayo boostada mar walba lacaga nagalo ayaga qaatay ayaga wax walba qaata ma fahanti صح dadku wax isku waxba ku heenin ku rafaadsan yihiin ya sababta ay u joogaan maxay tahay ma inta soo baxaan ma Afrika imaadaan baasaboorradooda gubaan waa su'aal ma aragtay dadka beenta isku cabaayeen waa xaasidiin abaa macaanto insha Allah waxa ku rajeynaa adin inaad ku guuleysato ma fahanti insha Allah marka maxamedow marka ani intaas la soo diray waxa la dhahay naga warsug marka sameeyna marka interview waa diyaarsanay indhaha kala fur 30 su'aal camal lagu weydiina jawaabtoodii laga rabaa CV na si diyaarso waxa ugu muhiimsan waxaaba jawaab su'aasha ugu horeysa waxa lagu leeyahay adiga noo sharax yaa tahay hay gmail ma la igu soo diraa mise maya interview caadi ee face to face ba maraysaa inta ku mara marka zoom oo sae zoom wax la dhahaa interview ku maray linki ku soo dirayaan join baad leedahay bis hay kadib interview saan hadda wada hadlayna camal wajigaaga xagga laga arkaa annakeyga inta laga arkaa waa wada hadlayna way faanta amlana kadib waxaa lagu weydiinaa adiga sharax yaa tahay magacaygu waa heblaaye hebel shaqooyinkaasaa soo qabtay waxaasaa ku fiicanahay intaa ka dhacday da'deedu intaas waaye balaayaa gelay kow dheh waa fahmay kadib waxaa lagu weydiinaa sababta aad u soo codsatay shaqadan maxay tahay jawaabta ugu weyn ugu muhiimsanna waa shaqadan aad ku heli kartid waa fahantaa malena waa fahmay
marka jawaabta bixin kartid waxa weeyaan aniga shaqooyin badan aan ka soo shaqeeyay shaqadan waxaan u soo codsadayna wax cusub inaan barto aan rajeynaya aqoonyahan haba iska dhiginba qof raba inuu wax cusub barto ayaa iska dhigaysaa waa gartaa mulana ها واقرتي kadib waa ka gudbaysaa su'aala lagu weydiinaa maxaa ku fiican tahay maxaa ku xun tahay dabcan in lagaa xanaajiyaa la isku dayaa interviewga dhexdiisa ma fahmaysaa marka dhoola caddeyntaada waa muhiim gaalada ayagoo xaasidiin ay qoslaan ma garat سفيان